howlgala Soomaaliya waxa ay codka ku sheegayaan in ay wajahayaan weeraro isla markaana aysan haysan xorriyadda hadalka. fagaara aan horey loogu baran ayay isugu soo banbaxeen saxaafadda iyo ururada suxufiyiinta waxaana ay codka ku sheegayaan in ay la kulmayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilin, xereg, handadaad iyo in laga hor istaago xogaha ay bulshada u gudbin lahaayeen. wariyeyaasha iyo ururada u dooda saxafiyiinta ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan dalka uu marayo xaalad adag kuna soo leedahay doorashooyin khatarta cudurka coronaviruskana ay jirto haddana hay-adaha dowladda ay kala kulmayaan juujuub islamarkaana saxafiyiin badan ay handadaad ay la kulmeen kana carareen waddanka sida uu TV-ga Universal u sheegay xogayaha ururka isku-tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Xuseen Maxamed Ibraahim Macallimow. sidoo kale waxaan la wadaagaynaa ururada kale ee aan wada shaqaynta leenahayna in aan si wadajira u muujino sida aan uga xunnahay xariga iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed oo runtii walaac weyn nagu abuuray xilli dalkan doorasho uu rabo xilli dalkan cudurro maaragtay adduunka saameeyay ay ka jiraan in xaaladii wariyaasha iyo dhaqdhaqaaqa wariyaasha si weyn loo xadido runtii xaaladaas aan ka hadlayno. tacdiyada wariyaasha ay la kulmaan waxaa isugu jira qaar waa la dilay afar wariyaa la dilay waxaa jira xarig maaragtay aan loo meeldayin oo sharci aan ku dhisnay oo ilaa 64 wariyaa dalka oo dhan lagu xiray. sidoo kale waxaa jira wariyaal iyaguna maaragtay dhaawacay soo gaareen kuwa waxaa jira warbaahin laga xiray oo warbaahintoodii ay maqan tahay oo maaragtay laga haysto. waxaasoo dhan ayaan maanta ka hadlaynay. Cabdalla Muumin Axmed xogayaha ururka SJS ayaa TV-ga Universal waxa uu sheegay in xilligani xaalad adag ay wajahayaan wariyeyaasha dhibaatooyinka ugu badanna ay kala kulmayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ragabtaan uu ku muujiyey in suxufiyiinta ay kusii shaqeeyaan xaaladda iminka ay ku sugan yihiin. waa maasanta suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay ku shaqeynayaan xaalad aad iyo aad u qallafsan oo saxaafadeedkeennana aan ku cadaynay oo ciwaankiisa wuxuu ahaa suxufiyiinta saxaafadda Soomaaliyeed oo lagu hayo weerar joogta lagu hayo ما هكلي الشباب دولة فدرال الصومالية أيها وحيلة صوب إحنا دكان آدي أولوس أو كل سكن أي كل ما مرة خربوا دول الشباب أو دولة الصومالية صار ما يسوى لو كنت إسرائيل كم بعد سنة قلم سنة أو سديت يكون على سديت يكون عين أو كنت نسبح أو صدني سديت كمية دولة الصومالية هي هذا كل دول أي كيستين لو كنت لواتنا وحد مرة إننا إسرائيل كم في عيال يعني وحبس يكجرا محمد عبد الوهاب وعلوه انتباه هارون معروف إيو ريال كله وحمانه والبسيط وقت لو كراعيا ولو joojinaya oo loo xanibaya saxafiyiinta Soomaaliyeed oo kala duwan waxaa la joojiyay tarintii laga joojiyay goobjoog waxaa maalin wada xanibay lacag ku taala baraaw waxaasoo dhan waxay yihiin Cabdicasiis waxaa gudub lagu xadgudbayo dastuurka dalka qodobadiisa 32 oo damaanad qaadaya xorriyadda saxaafadda saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay ku jiraan dab iyo bensiin dhexdooda ayay ku jiraan in ka badan 100 wariye ayaa la xiray waxaana dadada la isugu laabay